qiso jacayl waan jeclaa laakiinse danayste ayuu igu noqday dhacdo murugo leh. Anise ayaa noo soo dirtay qisadan jacayl oo ku dhacday ayada, waxayna ku bilowday hadalkeedii sida tan: assalaamu calaykum. Waxaan halkani salaan qiimo badan iyo wanaag badan u marinayaa maamulka iyo shaqaalaha Rajada Nolosha Channel iyo qof walba oo daawan doona qisadayda cajiibka igu dhacday. Aniga da'daydu waa 21 sano jir, waxaan ku noolahay magaalada Boorama, waxaana weli ahay ardayad dhigata jaamacad. Qiso igu dhacday welina qalbigayga danqinaysa ayaan go'aansaday in aan bulshada aan la wadaago si ay ugu yaraan dhibaatada aan dareemayo igaaga yaraato. Waxaan muddo isgaranaynay wiil aan jeclaysan in aan halkani magaciisa ku soo gudbiyo. Waxaan ahayn dad jacayl wadaag ah, laakiinse marka xaqiiqda laga hadlo aniga aad baan u jeclaa, laakiinse dhankiisa Allah ayaa garan kara og. Dad badan ayaa xitaa la yaaba heerka uu gaarsiisan yahay jacaylkaan u hayo. Noloshaydiina waxay ahayd mid aad iyo aad ugu faraxsan mar walba oo aan la joogo ama aan maqlayo codkiisa. Aniga waxaa i dhalay mid ka mid ah ganacsatada ugu magac dheer Boorama ama guud ahaan deegaanada Somaliland. Wiilka aan jeclaa waxaan ogaaday in uusan igu soo raacin jacayl, laakiinse hantida waalidkay uu danaynayay. Wax walba oo uu magaaladu ka jeclaado waan siin jiray, ilaa nafteyda ayaa jeclay. Haddana isagu ma ahayn mid dhaqaalahaya ama reerkiisu hayaan. Aniga oo taa eegaya ayaan maalin walba nolosha meeshaasi ka fiirin jiray, balse waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu ninkii isbedelo. Waxa uu la saaxiibay inan kale oo dhaqaale haysata, weliba iyadu ganacsata ah, waxaana ay la socotay in aan xiriir wadaag ahayn. Waxayna fartay in uu iga haro. Galab khamiisa oo aan ballansanayn ayuu xaafadda igu yimid, iina sheegay in uusan wax jacayl ii qabin, isla markaana uusan doonaynin in mar kale aan is aragno. Aad baan u qaracmay, waxaana dareemay dhibaato badan oo qalbigayga soo wajahday. Waan cishooday. Ku dhawaad bil waxaan ahaa bukaan socod. Dadaal badan waan bixiyay. Asxaabtaydii iyo qaar ka mid ah ehelkaygii baan u diray, laakiinse waxa uu u soo sheegay in aanu jeclayn, balse uu ahaa kaliya nin jaanisgaad ah ama qarash raadis ah, helayna mid aniga iga wanaagsan. Maalinta oo hadda laga joogo 7 bil, xaqiiqdii aad baan u gubtaa. Waxaan sameeyana ma garan karo. Dhibkaas ayaa i heleelay. Waxaan ka codsanayaa dhammaan asxaabta ku taxan Rajada Nolosha Channel in ay wixii talaa igu soo caawiyaan. Waana ku mahadsantihiin, ayay ku soo gabagabaysay gabadhii Anisa qoraalkeeda.